doorashada madaxweynaha cusub ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayay ahayd mid ay aad ugu farxeen ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan dal iyo dibadaba si weyn ay u soo dhaweeyeen waxa ayna farxadooda ku muujiyeen damaashaad iyo dabaaldego ay ku dhigeen meel kala duwan ee dunida ah shacabka Soomaaliyeed ayaa siiyay mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo taageero weyn oo aysan hore u siinin bulshadeynta iyo waxgaradka Soomaaliyeed ee ku nool dalkan Yemen gaar ahaan magaalada Cadan ayaa aad ugu riyaaqay una soo dhaweeyay doorashada mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo gudiga qaxootiga Soomaaliyeed ee Cadan oo soo abaabulay xaflad weyn oo lagu maamusay laguna soo dhaweynayay doorashada Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa ka soo qayb galay dhammaan bulshadeynta Soomaaliyeed iyo waxgaradkii meesha isugu yimid ayaa sheegay sida aan loo soo koobi karin oo ay ugu faraxsan yihiin doorashada mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa ayna inta ku dareen doorashadiis in aysan ahayn guul isaga keligii u soo hoyatay balse ay tahay mid Soomaalida oo dhan u soo hoyatay waxa ka hadashay gudoomiyaha gudiga hooyooyinka iyo sidoo kale gudiga qaxootiga Soomaaliyeed sidoo kale waxa ka hadlay mas'uuliyiin kale oo ka hadleen xafladan ka soo qayb galay محمد عبد الله فرماجو أنا أقول فرحتنا وحنا وعن ما أنت فيصل السليماني إنهان وهم بليانو مدري فرماجو مدحوينا عصب سوماليدا يدورتين وأنا كنا عرالي كنا هاي حتى أنا هاي قحوتيكا سوماليات جوجو دالك يمن وحاين اللي هاي أمبليو مدري فرماجو وحا عواك هذا أكدكتي دانتا دالكا يددكا وحرنا مركا تاس إلي رونا قدو نمكالي وحا وقعنا هاي هدي إلهي رالي كنا قدو إلهي كرمتا هكذا وحا وقعنا هاي دادك الصوورك دادك دايرتا وكل ما سيسان دالكا وليسا وإنه يحكي قبتا أشكر الشعب الصومالي لهذه المناسبة العظيمة التي تم فيها انتخاب الرئيس الجديد الذي قائمنا امامه بوضع المستقبل ووضع النظام والديمقراطيه. الصوماليات والرئاسة والوقت والحكومة والحلوة الأولين من جنوب الصومال السوري وصوماليا محمد عبد الله فرماجو. وعن أي سنة مدحوينا عطل الوقري محمد حسن قالوا أقرأ محمد عبد الله حسن محمد فرماجو waxgaradkan ayaa hambalyo iyo bogaadin u diray mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan taageersanahay madaxweynaha cusub aan hambalyo u dirayaa hambalyadaasi waxay tahay inuu ku guuleysto iyo madaxweynaha noqon lahaa diintiisa dalkiisa oo aan dinkeyga wuxuu yahay inuu wadankeyga Soomaaliyeed uu kor u taago oo noqono weligiisa ahaado oo tooso hadeertaan waxaan jecelnahay inuu wadankeyga ahaado شرفت له وقيمة خياله ما أنت وحن وصوبنا بحنا مدحوينا فرماجو أقول أنت ولاش هذا كده من هاي ولقى هاي وفرماجو هول باكسوجيس دان هاي ومدياش مساكين عدن كل هول باكسوجيس ومد الصومالية دان هذا كوبان الصومالية هنولاتو hambalyo ayaan u dirayaa waxaan ku soo dhaweynayaa madaxweyne Farmaajo oo aan leeyahay weliga ahay madaxweyne waa ku salaamay boqolkiiba 14 kan ku salaamay salaam bacdigeed waxaanu kaaga fadhinaa haddaanu nahay dadweynaha Soomaaliyeed oo jooga Yaban qaasiyaan Cadan waxaan kaaga fadhinaa inaad hambalyo aan ku fidino farmaajo lix boqol lixda ayada ku salaamantahay sida ninka dadkiisa diintiisa wax u qabtaa ka dhigo waxa ayna mar walba ducadoodu ahayd Ilaahow dibad waan ku daalnay mid dajiya dalkeena noo soo dir waxa ayna maanta isku wada raaceen in ducadoodii Ilaahay ka ajiibay Maxamed Jeelaani SBC Yemen Cadan